wiilkan da'da yar ee idin muuqda ayaa ah Guuleed Aadan Cabdi oo ah mid uu eebsiiyay hiba rabbaaniya wuxuu hindisay samaynta diyaaradan qabyada ah oo ah kuwa qumaatiga u kacay helicopterka loo yaqaano taasoo maraysa in marwaxadaha sare ay wareegaan iyadoo ku shaqeynaysa dab hore wuxuu ugu caanaha samaynta iyo soo saarista alaabta caruuruhu ku ciyaaraan oo ka samaysan naqshadaha baabuurta iyo diyaaradaha kuwaas oo ka sameyn jiray caagaga iyaga oo soconaya Guuleed oo ah arday dhigta fasalka 7aad ee iskuulka ayaa degan magaalada Buuhoodle gurigooda ayuu ku dhex sameeyaa agabkan tuulka uu ku shaqeeyana waa mid kan idin muuqda gidaarka waxa uu dhigsan naqshada diyaaradda uu rabo inuu ka dhigo tan idin muuqata ee qabyada ah taasoo isagu gacantiisa ku sawiray Guuleed ayaan weydiiyay hamiga uu ka leeyahay samaynta diyaaradan xilligan qabyada oo ah qalabkan aan ka sameeyay imika tani waa diyaar oo waxa uu ka dhimay jinki laakiin hadii aan wandhaman kara wax dhib iguma haysto laakiin kuwa kale oo ka yar way yaalaan far badan oo kuwaas way ordan laakiin tani waa kuwa caadiga ah la raaci jiray oo waxa uu ka dhimay muraayadaha iyo jinki oo gartay marka noocee weeytan oo noocee helicopter qumaatiga oo ka caawiyaan imika Soomaaliya laga ma helay laakiin waa kuwa qumaatiga oo ka waxa wata booliska iyo waxa ka haysta oo ku qumaatiga ka laga hadlay waxa ugu dhaliyay marka hindisaha noocan inaad helicopter ka bilowday waxay ugu dhaliyay wallahi runtii aniguna waan isku dhaliyay ana marka hore ana yarba iyaga yarba ka bilaabay markii hore caagadan ka bilaabay markii dambe macluumadeeda ay ku dhiirigelisay kadibna waan kordhiyay imika waxaan jeclahay inaan Soomaaliya diyaaradaha caadiga ka mamnuuco kuwa aan sameeyo ka shaqeeyo waa gartay ma isleedahay waad gaari kartaa hamiga noocaas haddaan aniguna aanan kan iyo jaban waan gaari karaa oo imika waxaan ahayn imika hadanba waan samayn karaa waxaan ahayn waxa jirta qalabkii sida birihi iyo waxaan ahayn laakiin waan samayn karaa dhib iguma haysto xagaad ka baratay marka waxaan adigu in sidan loo sameeyo la isugu raab karo wallahi cidna kama baran maskaxda ka keenay qofku haduu wax isku dayo ku guulaysan kara laakiin inta badan dadka Soomaalida isku madayaan waxa uu yaqaan imika aniga waa la igula yaab waxa la yiraahdo dadku maxaad ku falay waa maskaxda ku yiraahdaa dadka oo waxa aan gaaray heerkaas idinkuna gaar marka hadda bahashan ruuxada wareegaysan maxaad ku wareejisay hanka ijin yar bilaadahay laakiin ijinka aan awood saasa aanu keenay laakiin awoodda imika hadda iyadu ay aad soo wareejisa way fududaynaysaa inay kacdo markaas waxa uu fududaynaya weey ruuxada marka ma kacaysa hadii si wareegto hadda imika aan ijinka imika taasna waa tii kala celinaysa tanna waa kiciyada oo handbrake iyo saacadaas ay hadhowto dabka laga shaqeynayo kaga shaqeynayo ay ku kacaysaa تينك بوقت تينك تصل سميتها والله إن بدنا ما قادنا إن طاري قادت لكن إنك ونكوجو لاستوي دود وحير بكهرسن والله وحن شعلان لها إنه حلا وحن مال أن وح قسمية حبانا إنك ماشي هو جوري دحدي لكن هذا إنك عن حلا وح يقع ويسد برها قلب كوحة عاصة إن waxaan sameyn karaa meel cadiyaradaha caadiga waaweyn inaan sameeyaan jeclaayo la raacayo gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada ee gobolka Cayn Abukaati Cabdikariin Maxamuud Axmed ayaa ku booqday gurigiisa isagoo u muujiyay dhiirigelin wuxuuna codsaday in hankiisa la dhiso lana garab istaago wiilkan yar ee hibada leh in hay sameeyay marwaxadiisa ay wareegaysa waa helicopter weyn wuxuu qaadi karaa ilaa 3 ilaa 5 qof uu qaadi karaa waxa adeegsan karaa ciidan iyo shacab hadii helicopterkan lagu guuleysto ninkan wuxuu u baahan yahay dhalinyarada oo aan weligii tagin dibad u bixin magaalada ku dhashay jooga meel wax lagu farsameeyo aan arkin maskaxdiisa wax ka keenay wuxuu u baahan yahay ninkan maanta in la gacan qabto dalka iyo dadka u baahan Guuleed maanta waxa weeye waa agoon reer danyar buu ka dhashay wuxuu u baahan yahay in ninkan la gacan qabto oo waliba laba qolaan fariin u diraya madaxda qarankana fariin baan u diraya shacabka Soomaaliyeedna fariin baan u diraya shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ninka dhalinyarada ah adduunka wax la isugu yahay aakhiro qofka amalkiisu la tagayaa hami buu hayaa wadanka wax uu soo saarayaa ninka dhalinyarada aan gacan qabano waliba dadka deegaankan u dhashay baan gaar ahaan u la hadlayaa madaxda qarankana waxaan leeyahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo xukuumadda dhan waxaan leeyahay iyo golayaashaba Guuleed maanta dadkii aad u dhaarateen oo aad ku ballan qaadeen markii musharaxiinta ahaydeen inaad wuxuu qabanaysaan buu ka mid yahay waa agoon waa danyar waa farsamo yaqaan wadanka waxaynu u dirsanay
tababar waxaan u dirnaa bayloodo Turkiga inoo jira iyo wadamo badan diyaaradana ma lihiin aynu soo saarno iyo cidi waxay noo sameysay waxaan aaminsanahay bayloodada la soo tababarayo diyaaradaha kicin lahaayeen ninkii sameyn lahaa inuu ninkan yahay marka waxaan rabnaa ninkan waa ninka dhalinyarada ah wali ma qaan gaarin in ninka la gacan qabto oo madaxdu waxa la yiraahdaa si fiican u gacan qabato xil baa ka saaran macallin Caasha Axmed Cumar oo ilaa yaraantiisii macallin u soo ahayd wiilkan ayaa ka hadlaysa taariikhdiisa markii uu yaraa wiilkani iyo sida lagu ogaaday inuu hibo noocan leeyahay helicopterka maanta aynu ag taaganahay ayuu sameeyay macnihii marka weeyaan waxa ka dhiman in macnihii tababar la siiyo oo meel wax lagu baro la geeyo ama la dhiirigeliyo oo qalab iyo wax haduu heli lahaa waxaan qabaa mid duulaysa inuu sameyn lahaa inkastoo wiilkani hibo dheeraada iyo kartiyo ka muuqato kama maarmo gacan qabasho iyo dhiirigelin dheeraad ah taasoo u sahli karta inuu mustaqbalka soo saaro wax anfaca bulshada oo dhan